waxaan idinku hambalyeeynaya inaad ka soo baxdeen imtixaanadii aad baaskarayseen iyo idinkoo maanta murashaxiin u ah inaad jaamacadihii gashaan. tacliintu isma taagto, meel ay ku go'do oo lagu dhammayn karaa ma jiro. haddaad eegto definitionka waxbarashada ka ugu ballaaran markaa what is education, waxa weeye what happens to you from birth to death. maalinta aad dhalato ilaa maalinta aad dhimanaysa wixii kuu kordho ayaan waxbarashanaynaa si guud. tii fasalka ee afarta gidaar u dhaxaysay iyo tii jaamacadda ugu weyn adduunka ee ah caalamka nolosha ah, labada markaad eegto waa intaa waa aragnibaa kuu kordhaysa, aqoon kalea kuu kordhaysa. tacliintu isma taagto. marka marxaladaha dhammayseen, afartii sano hore dugsiyada hoose, afartii dhexe, afartii sekandariga ahaa, afar iyo wax la jira idinku xiga oo xagga jaamacadda heerarka koowaad iyo ka labaad iyo kolba intii ilaahay qofka u qadara ah. marka way fiican tahay, waa nasiib badantiinoo berigaan yaryarayn annaga ma jirin sekandari qudhaa jiray dalkanba, somalilan markaa oo ingiriisku haystay. sekandarigaasina halkanaad maanta joogtaan ee jaamacaddu ahaa ilaa ceerigaabo ilaa saylac camuud secondary school baa la iman jiray 8 sano. sanadka ingiriiskii markii 4 bilood uga hadhay ee halkan 8 sano ay secondary ahayd ayaa secondary-ga sheekh la dhisay cusub. sheekh intermediate unbay ahaan jirtay, laba intermediate baa jiro dugsi hoose iyo dugsi dhexe ah. labadaasina waxay ahaan jireen sheekh iyo camuud. marka secondary cusub baa laga dhisay camuud. beriga annagu form 1 baan ahayn markii ingiriisku dhisay, form 1 baan ku jirayo. marba waxaa la noo keenay 34 baabuur oo ingiriisku leeyahay. secondary-ga camuudeed baa laga wareejiyey, sheekh baa loo wareejiyey bartan ah oo dalka bartankiisiya. halkana sheekh waxa lagu qaban jiray tababarka macallimiinta iyo teacher training iyo vocational education iyo wixii lagu baran jiray halkan laga dhigay. 2 sano ka bacdina camuud baa dib loo furay. marka imaka waxa la igu lahaa magaalada Boorama mise gobolka Awdal waxa jira 22 secondary school baa jira leeyahay halkan imaka. wada idinkaaba garan, idinkaa ka soo baxbaxay oo daafaha magaalada mid walba intaa. marka waa kanaga nasiib badnaydeen. ta kale jaamacadihiina waatana waa agtuununiyada qofka ilaahay wuxuu uga calfaba. marka waa ku soo dhawaynaysaan, waa idin soo dhawaynaynaa jaamacadda camuud, waa idinku hambalyeynaynaa levelskaas soo dhammayseen. insha allahuna in aad levelskan kalena si sidaa la mid ah oo naajixa aad u samayn doontaan. waxa weeye jaamacaddan waa jaamacad imaka koraysa iyadba dalkan nacam waa iyada. somalilan haddaad rabto tacliinta sare ee somalilan haddaad wax ka qorto ood research ku samayso meel kale tegi maysid, camuud baad kaga bilaabi, because tacliin sare oo somalilan ka horraysaba ma jirin camuud. you have to start it here, camuud inaad kaga bilowdo. markii hore jaamacad qudhaa jirtay oo xagga koonfura, ragga iyagan halkan rag baa ka soo baxay ka shaqayn jiray. amba hormood baan ka ahaa kulliyadii halkaa ee Somali National University, mid baan ka ahaa kulliyadii waxbarashada ee Lafoole ayaan mardiin ka ahaa 20 sano aan joogay. marka imaka waa kan waxayna waysu keen qofalayeen insha Allah. hadda barnaamijyadeeda waxaan ku bilownay 2 kulliyadood oo digriga hore labadii kulliyadood imaka 14 meelahaas ay marayaan iyo kulliyad postgraduate oo digriyada master's degree iyo wax ka sareeya. insha Allah master's ka imika 9 sano wadnay halkan iyo Hargeysana waxaan ku leenahay waa master's programka Somaliland ugu weyn ee dalka ka jira. jaamacadda camuud baa loo Hargeysa. sanadkana insha Allah by the time aad idinku ka baxdaan halkan camuud baad PhD ka bilaabaysaan. PhD dibadda loo tagi jiray ayaad camuud ka bilaabaysaan, because sanadkana furaynaaba iyada lafteeda oo jaamacaddii ugu horreysay ee Somaliland oo PhD bilowday inuu noqon doonaa insha Allah. sumcaddeenna way fiican tahay. waxaan isku kiint markaan sumcaddeenna leenahay idinkana dee camuud baan idinku wada tirinayaa imaka laga bilaabo. sumcaddeenna waa fiican tahay oo jaamacadaha maanta geeska Afrika, Soomaalida geeska Afrika, at least wadankii Soomaaliya la soo oran jiray jaamacadda ugu magac weyn baynu nahay insha Allah. magacana waan kasbanay oo arday iyo macallin iyo maamul iyo intii isu jiraba
meeshan waan wada dhisnaa ardayda wayna la dhistaa jaamacadda oo hadday ugu yar yihiin dadaal iyo sabir bay nagula dhisaan waxba inaga dhiman waa la sugi ilaa inoo imanaya wax gorayaan nahay iyo akhlaaq iyo dhaqan kelideen ma nihin haddaan ree awdal nahay ma nihin jaamacadu adduunyada university haddii la yidhaha ama jaamica waa wax kulmiyey haddaad aragto jaamacad gobolkaa uun dadku ka yimaadaan ama degmada jaamacad mahe waa dowladda hoose booramo oo kale in yaroo kooban uun cashuurta ka soo ururisa jaamacad cid waliba way gashaa gaal iyo islaam kii shuruudaheega buuxiya marka imaka I think imtixaankaa dhowaan la sheegay oo saasaad imaka waxaad u badan tihiin ree awdal baad u badan tihiin iyo salal arday kalena way idinku jirtaa oo gobollada kale laakiin ayoon ardaydii kalena way soo kordhaysaa arday fara badan gobolladii hore ee soomaalidu markay wada jirtay iyo ahaa midaan laga eena ma jirto waana waxna way wada bartaan waxna way kala bartaanoo iyaga dhexdooda isbara wax dhaqanadii isbara saaxiibo cusub samaysta oo dhaqan waliba wax faa'iido leeyahay marka waa jaamacad aan laga aqoonin qabiil iyo gobol iyo ardaygu iyadoo wanaagsan u bay naga tagaan bari waxaan idhi masaajidka marka lagu tukanayo imaamku istawu buu yidhaahdaa markuu istawu yidhaahda safka hore ree hebel yaa ku jira ma yidhaahdo annana istawudaasay noogu joogtaa ree hebel iyo howlaha ma naqaano arday baa noo wada tihiin jaamacaddaynu wada leenahay marka barnaamijyadeedu waa idiin diyaar waa kuwan hormoodyadii iyo raggii idin siin lahaa iyaga idiin sharxi doona weliba marka sumcaddeenna wanaagsan ee jaamacadahan wanaagsan waxa la socda in shahaadadeennuna sumcaddeedu fiican tahay oo dabaddana meelo badan laga aqoonsan yahay oo ka jira hadda waxaan xasuusnahay laba dhakhtar oo ka baxay family medicine-ka barnaamijka family medicine-ka ee takhasuska laba dhakhtar oo ka baxay oo ingiriiska dhowaan tegey 8 bilood bay loo qabtay 8 bilood markay joogaan bay imtixaankii galeen lagaga shaqaysanaya ingiriiska ee dadka ingiriiska u dhashay badankoodu wax qaadan jireen shisheeyaha ku yar labadii dhakhtarba way baasgareeyeen iminka waa dhakhaatiirta waxay ku jiraan rasmiga ah ee dalka ingiriiska taa macnaheedu maaha tagaydin mali xaggaas shaqo ka bannaan tahay waxaan ku leeyahay qualificationkii halkan jiray medicine-keena halkan lagu barto iyo maadooyinka kale qaarkoodba waa muctaraf bay ka yihiin xataa employmentka dadku waa faanka badani ma fiicna laakiin haddana waa nicmo ilaahay kugu manaystay wixii ilaahay ama binicmati rabbika faxadith meelaha qaarkood haddii loo tartamo shahaadada jaamicadda camuud iyo shahaadooyinka kale qaarkood isku mid ma aha ardaydii waxaan arkay ardaydii shaqada qaranka ee halkan marka imtixaanka laga qaado la shaqaalaysiinayay boqolkiiba halkan gobolkan awdal boqolkiiba 80 iyo wax ka badan waa ardayda camuud 23 hablood baa shaqal hore la qaatay saddexdun baan ahayn camuude 20 kale waxay ahaayeen 70 arday inama la qaatay 70 kana afar man camuud ahayn camuud looma eexan laakiin imtixaankii laga qaaday ba ku barmuuseen marka hada min fadlillah mar baa jirtay xataa ardayda gobolada ka timaada marka ama loo yaacda soo marayaan ama tukarraqiya soo marayaan iyagoon baasaboort sidan maxaad caddaynaysaa kaadhkii camuudeed markay tusaan waa naqaana socdaa la odhan jiray markii dambe baasaboort la soo rogay because nabadgelyo awgeed marka waa meel jaamacad meel walba laga ixtiraamo runtii waa Soomaalidu iska fara badan tahay imika Soomaalidu imika 100 jaamacadood baa lagu sheegaa geeska Afrika Soomaalida oo Soomaaliland kaliya 30 iyo ku arkaysa laakiin de way iska caadi business way noqotay albaab intaad karaysataa jaamacad ku qoranaysaa laakiin annagu taamanihin frankly waxa weeye macaashna kama rabno waxaan develop garaynaa laba kow inaan idinka hore idin marino iyo hooygiina inaan hore u marino labadaas anaga ujeedadayo tahay ninka daarkii raystay waxba hore u marinaya intuu arday meel galiyun buu xogay ka qaato dabatana ay ka baxayaan laakiin anagu waxaan rabnaa waxaan leenahay dhulka ugu fara badan ee jaamacad Soomaaliya leedahay boqolka sano ee soo socda camuudi dhul kale u baahan maysa ama 200 haday gaadho waxaan rabnaa in sanad walba inaan wax ku daro
inta ila hadii ilaahay yiraahdo inoo qadaro cidii kulba joogta sanad walba in wax lagu daro oo institutionkiina waan dhisaynaa ardaydiina waa tababaraynaa laakiin jaamacadaha Soomaaliya waxa u badan wax ardaydu tababarayo marka laga baxo aan meesha waxba u hadhina aqalkan haduu ka baxana mid kale halkii kariyo haduu ka baxana mid saddexaad halkii wareegaya halkani waa institution permanent oo aan isleenahay imaka hawlkani uu idin la weyn yahay darato waxaan dhagax dhiganay halkan balla baneeyay insha Allah gudambe ama sanadka dambeeya waxa inoo dhameystirmi doona hawlkan laban laabkiisa ama saddex laabkiisa oo ilaa 6 kun iyo wax ka badan qaadi kara oo lagu qalin jabiyay halka ka dhisi doona halkan waxaan soo wareejinaynaa library weyn oo ardaydu wax ku akhrisato internetka ku gasho halka ay ka shaqeystaan waan halkan insha Allah ka dhigi doona marka wa institutionka inuu develop gareeyna waan isbarbar wadnaa idinkoo dhismaya iyo jaamacadda oo dhismaysa labadii oo waa win-win situation insha Allah marka inta joogtaana insha Allah waxaan rajaynaynaa inaad si fiican wax u barataan dadaashaan jaamacaddu sidii secondaryyaasha maaha macallinku guidelines uu ku siin waxoogaybu ku sheegi inta badan inaad idinku kordhisataan waqtigeenu waa qaali inaad ama wax baranayso waan ognahay habluhu waa busy iyagu hadda jeer shaqooyin badan bay hayaan oo guriga inooga shaqeeyaan oo gabadh baa marna la soo hadasho halkana macallin baa qabsaday markaas macallinkii ayuu ku tiri waa ku dhawahay ayaa tii xageed ku habsaantay maasa tiri macallin de kaliday ilmaha gurigana caruur badan oo walaalnahay baa iskuul ku jirto iyagan qureecdu u dubay degdeg buu isbax adugu inta kale waan xisaabinaya noqdaydu taa qureecda dubaysu ma ogolahay inay ka soo meesha ku habsaan oo hawle habsaamisay taa waxaan ka wadaa habluhu mujtamaceena waxa laga yaabaa inamada halka jooga walaalahood habluhu walaalin qaar ku jiraan saaka iyagu qureecda u dubeen hawlo badan bay inoo qabtaan dharka inoo meedaan oo inamada intaad يعني وحوي وشقاء ولقد لقبان كرنبا إنه قبتان مركا لكن استلبردو وقت وحلقوا برتو أو وحلقوا أخرسوا وضع هيصنا دراتو قلت جبينتي هالكم واردين تانكو وعديين لها دالني يرادي فراغادو دي بابدتي أرتيد قريا وحكوا أخرستان عرورتا يريد بانورتا وچيدي لكن وين وضع قبتاه ومعلكم أمركم تقدوا حبوا قريا كسو دياريا إذا كانوا وحل الربائين قريا وحكوا أخرستان إن أنت معلمك إذن الشيء إنك بدن إن برتان وارد كل ريا ولا يسوقيا مر لبعض يا مر صدحات عمود ينبست كسر دوادا وانودين كلا قايلين كل يده هنا إذن كشويس كله سنة كان هراء وإذن كاويديننا سنة كلا بعدنا إذن كود ديارة سنة كان كاويد بتجلسه إذن كود ديارة كل ذي كلا جلسان ولما قولنا عافمات كي يدبانو هبيني وحلقة يابيني عافمات كدخاتير توقتي وحكدن مو إن شاء الله نوانس ورسنتنا وبالله التوفيق.